11 sano uu saygeedu xunaa waxa ay diiday wacadkii dhexdooda yaalay inay burburiso iyadoo u samirtay inta uu ka helay saygeeda xorriyadda. Cabdilaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo muddo 11 sano ku xidhnaa xabsiyada dalka Jabuuti oo maalmo ka hor xorriyadiisii dib u helay waxa uu dib ula midoobay qoyskiisii. Waa maalin ilmada farxadda salaanta damqashada iyo dhoola cadayntu laabahooda gilgishay kadib safar qaraadh oo dheer. Markii la xidhay Cabdilaahi wuxuu ahaa aroos cusub. Toddobaad uun kadib guurkiisa ayaa gacanta loo geliyay dalka Jabuuti waxaanu galay xabsi ciqaabeed dheer, balse xaaskiisu ahayd gabadh da'yar xilligaasna ahayd aroosad cusub. Waxay noqotay astaanta adkaysiga, dulqaadka iyo jacaylka runta ah. Waxay diiday inay kala tagaan oo waxay weheshanaysay samirka iyada oo 11 sano si kalgacayl loogu dhabar adeegtay sugitaanka saygeeda. Balse maanta samirkeedaasi wuxuu noqday ubax udgoon oo midhihiisa la gooyay. Cabdilaahina waxa uu noqday xor. Gacanta ayaanu xaaskiisii qabsaday iyadoo indhahooda isdhaafsadeen wacadkii hore iyo kalgacaylkoodii. Qoyskan waxa uu galay taariikhda iyadoo bulshada laga dareemiyay tixgelin bogaadin ballaaran oo ku aadan geesinimada iyo daacadnimada xaaskaasi.